Waa mar kale iyo barnaamijkeenii talo iyo tusaale ee arrimaha qoyska aan kusoo qaadanayay oo aan kasoo bilaabo qaybta koowaad maantana uu noo maraayo qaybta 10aad oo gabagabadii ah. Barnaamijkaas oo aan uga hadlayay aasaaska qoyska, sida uu kusoo bilowdo lagu soo aasaaso, sida uu kusoo jiri karo oo dhanka wanaagga markii loola dan leeyahay oo laga rabo meesha inuu qoys qurux badan kasoo baxo, sida la iskugu dulqaadan lahaa, la iskugu samri lahaa, waxyaalihii burburka keeni lahaa, sida looga hortagi lahaa. Intaba waan kusoo qaadanayay. Maanta waa gabagabadii insha Allah oo qaybta 10aad ah oo aan kusoo gabagabeynayo labada dhinacba dardaaran guud ah oo qaybtii lagu soo xiraayo ah. Insha Allah kusoo dhawaada yaa idin leeyahay. Bismillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Cafiifa iyo mar kale channelkeena Cafiifa Channel. Kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladii, waa idin salaamay meel walba waa joogtaan. Jimco mubaarak yaa idin leeyahay, jimco kariim. Ilaahay maalinta jimcada fadligeeda iyo khayrkeeda hana waafajiyo dhammaanteen meel walba aan joogno. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inteena xanuunsan inuu caafiyo, inteena dhimatana u naxariisto, inta dhibaatooyin haystaan Ilaahay ka dulqaado. Intaas ba Ilaahay aan ka baryayaa. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay soo dhawaada walaaladee. Maanta waa barnaamijkeenii talo iyo tusaale ee arrimaha qoyska oo aan kusoo qaadanayay isbuuciiba mar maalinta jimcaha. Maanta waa qaybtii gabagabadii ahayd oo qaybta 10aad oo lagu soo xiraayay barnaamijka arrimaha qoyska. Wuu noo sii socon doonaa, barnaamijyo kale aan kusoo xigi doona hadduu Ilaahay idmo. Maanta marka waxaan kusoo xirayaa waa dardaaran guud oo aan usoo jeedinayo labada dhinacba oo aasaaska qoyska ah, oo qoyska meesha labada dhinac uu ku taagnaa ah, oo labada qof, labada waalid meesha hadduu ubad joogo Ilaahayba uu keenay, sida labadaba loo samri lahaa, loo wadi lahaa maxay ahaydey familka, oo wada jirkiisa iyo wanaagiisa looga shaqeyn lahaa labada dhinacba. Waan kula dardaarmayaa naftiina iyo nafteydaba aan kusoo qaadanayo maanta oo gubaabadii ah oo maxay ahayd lagu soo xiraayay barnaamijka oo gabagabadii ah insha Allah. Marka dhammaantiin walaaladii waxaan rajeynayaa in labada dhinacba la isu samro, la isu dulqaato. Waxyaalo badan la arkayaa oo maaragtay qaladaad oo qofba mar uu ka dhacayo. Bini aadanaa leeyahay qasab qalad uu iska imaanaya marka in la isu samro oo wixii la arkaba aan la dhihin maxay waxaan u dhaceen oo la iska soo boodin oo dulqaad la muujiyo. Mar walba qofka hadduu dulqaad badan yahay uu samar badan yahay wuu guuleysanayaa insha Allah. oo adduunkan iskaga samra xaaladiisa, xaalada adaga lagu jiraa. Marka sabarka muhiim ah iyo dulqaadka labada dhinacba inuu qof walba dhinaciisa uu muujiyo sabarka iyo dulqaadka oo degdegta la iska ilaaliyo. wax walba waxaa waaye degdegta waxa keenta dhibaatooyinka iyo dulqaad yarida oo wax walba la iska fududeysto. Xanaaqa degdega ah, talooyinka qaldan oo banaanka laga qaadanayo dadka kale, intaas ba haddii la iska ilaaliyo labada dhinacba insha Allah familkaas wuu hagaagayaa. Tan kalena ilmahan la ogaado oo maxay ahaydey ayaga laftirkooda dulqaad badan in la muujiyo u baahan yihiin, siiba kuwa qurbaha lagu haayo oo ayaga laftirkooda la isla ogaado oo laga warqabo oo ayaga laftirkooda dhankooda loo nuglaado, la ogaado dulqaadka loo muujiyo, iyagana la soo dhaweeyo labada dhinacba siduu familka ku wada shaqeyn lahaa, ku wada socon lahaa. Saasaa wanaagsan. Marka waxyaalahaas oo kale keeni karo burburka waa in aad looga taxadaro. Intaaba waa inay qofka uu ku baraarugsan yahay, qof walba uu ku baraarugsan yahay uuna fudaydsanin. Marka insha Allah walaaladays intaas maanta lagu soo gabagabeynaya wax inta dhan waxaa waaye in wixii fiican oo talooyinka ah oo fikradaha haddii la isu gudbiyo wax un baa la kala faa'iidayaa. Marka waxaan rajeynayaa intaas aan idin soo waday in wax un laga faa'iido sida aan rajeynayo iyo sida aan la jecelahay dadkayga wanaaga ah. waxa wanaaga inaan soo gudbiyaan jecelaha iyo wax laga faa'iidin karo. Saasaan wanaagsan in wax wanaagsan la isu gudbiyo oo la isla qaybsado oo waxyaalaha socda markaan arkay marka anigana wixii fikradeyda waxaan isleeyahay wax oo macquul ah waa inaad dadkaaga la qaybsatid oo
waxaa laga yaabaa inta taqaan wayba taqaanaa inay intii aan aqoonina ay ka faa'iido. Marka insha allah saasaan idinka rajeynayaa in maaragtay waxyaalahaas oo dhibaatooyinka noo keeni kara laga taxadaro. oo burburka qoyska aad uu noogu batay Soomaali haddaan nahay. Marka in la muujiyo sabarka oo la muujiyo dulqaadka oo wax wada qabsiga wada tashiga intaasaa muhiim ah. Wada tashigan aad uu muhiim u yahay haddii qofba qofka kale la tashan ay hortiisa u socoto meesha waxaa imaanaya in la is aamini waayo oo qofka kale ka shakiyo. Laakiin qof walba siduu damacsan yahay iyo meeshuu wax ka jecel yahay hadduu qofka kale u sheegto waa iska hagaagaysaa noloshaas gurigaas nolol qurux badan aa lagu noolaanayaa. waxaana muhiimada ah in horta la is dhegansado la is maqlo la isla tashto. haddaan la is dhegeysan oo qofba qofka kale markuu hadlaayo uusan ka dhegeysan wuxuu sheegayo oo uusan wixii saxna uusan sax waa yiraahdo intaana way qaldantahay uu yiraahdo isna u sheego markaa oo wax la wada qaybsado wixii fikrad ah wixii hadal ah taasaa muhiim ah. laakiin haddaan wax la isu sheegin la kala socdo taasna iyadan waxa waaye tan iyadan burburka keento. qaladaadka burburka keena aad ay u fara badan yihiin wax la soo koobi kara ma ahan. hadda marka ana intii aan awoodo marka aan maskaxdeyda ay i tustay ayaan idinla wadaagay. haddaan sii guda galay intaa way kasii badan yihiin laakiin hadda inta ugu muhiimsan oo ugu la wada ogyahay oo inta keenta aan idinla qaybsaday. intii aan ogeyn insha allah hadday ogaan doonaan. marka khayr aan idin rajeynaa walaalayday dhammaantiin. ilaahayna hanaga dhigo kuwa wanaagga isu sheego isu gudbiyo. dhammaanteen ummadda Soomaaliyeed waxaan ka rajeynayaa kuwa wanaagga iyo khayrka isla qaybsado inuu ilaahay ka dhigo. ilaahayna waxaan ka baryaa inuu wadankeena uu nabad nooga dhigo iyo meel wanaagsan oo looga raysto qurbaan joog haddaan nahay iyo intii gudaha joogtaba walaada ayagana dushooda ku socoto. ilaahayna waxaan ka baryaa inuu meel walba aan joogno inuu caafimaad iyo cimri dheer nagu siiyo. barnaamijkeena maanta in arrimaha qoyska waxaan kusoo gabagabeynaa qaybtan 10aad. insha allah waa noo jimcada kale barnaamijyo kale kusoo xigi doono oo aan qayb u qaadan doonaa hadduu ilaahay nafta igu simo. walaalay waxaan idin rajeynayaa khayr meel walba aad joogtiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum.